dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay korortay tirada dadka qaba caabuqa corona. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhameystiraya warkan. waxaa sii kordhaya tirada dadka laga helay cudurka coronavirus gudaha Soomaaliya. Wasaaradda Caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeysay diiwaan gelisay tiradii ugu badnayd ee dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur oo xalay shir jiraayad qabatay ayaa waxay sheegtay in cudurka coronavirus uu ku sii fidayo gudaha Soomaaliya isla markaana laga helay cudurkaasi ilaa 60 qof 2 qofna ay u geeriyootay. wasiirka ayaa waxay walaac ka muujisay faafidda cudurka coronavirus iyadoona shacabka ugu baaqday inay is-ilaaliyaan isla markaana ay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka. xaaladaha waxay marayeen 25 shalay kampiyoonkii la qaaday sambalkii la qaaday iyo maanta guud ahaan waxay isku ahaayeen 55 ruux ayaa laga qaaday sambal 32 ayaa waxay noqotay positive shalay iyo maanta kaliya marka lagu daro 25 oo shalay 57 iyo noqonaysa iyo 3 case oo shalay looga dhawaaqay Soomaalida waxay noqonaysaa marka tirada la isku daro 60 xaaladood oo coronavirus oo Soomaaliya ku jira. 2 qof waa laga geeriyooday Allah u naxariisto 2 ka caafimaadeen inta kalena waxaan rajaynaynaa haddii Allah in ay caafimaad Ilaahay u siiyo. sidaad la socotaan cudurka waxay ku jira si xawli ay u socdaan bulshada waxaa laga yaabaa dad badan oo qabo oo aan soo raadsanin inay isbaaraan ay jiraan. waxaan kula talinaynaa dadka in ay guryaha joogaan. wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay diiwaan gelisay tiradii ugu badnayd ee uu ku dhacay cudurka coronavirus kuwaasi oo ku kala sugan gobolada dalka. Jubbaland ayaa waxa ay shaacisay in markii ugu horeysay cudurka corona laga helay deegaanadeeda. Cali Cilmi Salaad hayno dhameystiro warkan. wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in shakhsiyaad qaba cudurka coronavirus laga helay magaaladaasi. kiisaska oo ah kuwii ugu horeeyay ee laga helo Kismaayo ayaa la sheegay in 2 qof oo qaba cudurka COVID-19 lagu arkay magaalada Kismaayo. wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish oo ah gudoomiyaha ka hortagga cudurka coronavirus ayaa sheegay in 2 ruux laga helay cudurka COVID-19 haatan lagu karantiilayo isbitaalka magaalada Kismaayo halkaasna lagula tacaalayo. wasiir Darwiish ayaa sheegay in inta karaankooda ay ka hortagayaan faafitaanka cudurkaasi si uusan saameyn ugu yeelan bulshada Kismaayo iyo gaar ahaan kuwa dega Jubbaland. 2 ruux ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee la xaqiijiyay inay qabaan xanuunka COVID-19 ee ku sugan meel ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland. inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu jiro shakhsi ka yimid Kenya oo cudurka la xanuunsanaya laguna baxnaaninayo deegaanka Dhubley ee gobolka Jubbada Hoose. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku baaqay in aan la siyaasadeen ka hortagga cudurka COVID-19. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa inoo faahfaahinaya. Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in maamul goboleedyada dalka ka jira ay kala shaqeyso ka hortagga coronavirus isla markaana aysan siyaasadeen arrintani si loo helo xal waara. coronavirus waa halis daran ee ku soo saa'iday dalka uuna saameeyay dhinacyo fara badan. sidaa darteed buu yiri madaxweyne Shariif in loo baahan yahay in la badiyo wacyigelinta bulshada si loo xakameeyo cudurkan. madaxweyne Shariif oo hadalkiisa sii wataya beesha caalamka ka dalbaday in dowladda Soomaaliya ay ku garabsiyaan agabka looga hortago cudurka coronavirus. waxyaabaha aan rabno dawladdu inay sameeyso aan kula talinayna waxa kamid ah wada shaqayn inay la sameeyaan dawlad goboleedyada oo loo midoobo maxay yahay arrintan siyaasad ma aha oo arrin insaani ah oo arrin khusayso qof kasta oo Soomaaliya marka inaan la siyaasadeyn oo siyaasadda laga saaro waxay abuuri kartaa aan leenahay jaanis dadka Soomaalida ku midoobaan oo ay uga gudbaan waxyaabo badan oo caqabad oo dhexdooda yaala. qadiyadan waa qadiyad dadka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed amaan taabanaysa marka cid walba oo qayb ka geysan karto oo dhaqaatiirta ay ugu horeeyaan ganacsatada dawladda iyo qaybaha kale bulshada ee waxtarka ah ama codkooda la maqlaayo inay dhamaantood u waajahaan si midaysan. sidaas oo kale waxaa jira talooyin ku aadan beesha caalamka oo madashu ay soo jeedinayso ah in la helo agabkii loo baahnaa sida agabka baarista dawooyinka ka hortagga iyo dawooyinka kaalmeynaya qofku inuu bogsoodo in loo helo dhaqaale marka dadka Soomaaliyeed meel joogaan in loo helo dhaqaale lagu caawiyo xaaladda adag ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed.
hadalka sheekh shariif sheekh axmed ayaa yimid kadib markii dowladda soomaaliya ay shaacisay xalay 35 kiis oo cusub oo coronavirus ah kaasoo gudaha dalka laga helay. isla wararka la xiriira COVID-19 ayaan ku jirnay. dowladda Kenya waxa ay sheegtay in kiisas cusub oo la xiriira corona laga helay magaalada Mandheere xilli halkaasi la geeyay qalab caafimaad iyadoona muwaadin Soomaaliyeed uu ugu geeriyooday dalka Kenya. Maslax Abuukar Xaaji ayaa dhameystiray warkan. dowladda Kenya oo ka mid ah dowladaha Afrika ee sida weyn oo la daaladhacaya xanuunka dilaaga ah ee COVID-19 ayaa waxaa marka ka dambaysa wasaaradda caafimaadka dalkaasi ay ku dhawaaqaysaa inay diiwaan gelisay kiisas cusub oo la xiriira corona iyadoona dadka uu soo ridanayo ay yihiin dad gudaha dalkaasi ku sugnaa oo aan marnaba dibadda uga bixin. 11 qofood oo wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ay diiwaan gelisay saacadihii ugu dambeeyay ayaa la sheegay 4 qofood oo kamid ah inay ku sugan yihiin ismaamulka Mandheera oo horay 2 kiis looga diiwaan geliyay iyadoona xaaladda dadkaasi haatan la sheegay in lagula tacaalayo cisbitaal weyn oo ku yaala Mandheera. sidoo kale ruuxii ugu horeeyay ee Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi ugu geeriyooday cudurkan dilaaga sida ay sheegeen ila wareyti lagu kalsoon yahayna ruuxan ayaa ahaa rag da'a mana sheegin wasaaradda caafimaadka dalkaasi faahfaahin ku saabsan halka xaaladiisa lagu baxnaaninayay da'diisa iyo xilliga cudurkan laga helay. Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa waxa ay wajahayaan cabsi aad u xoogan oo ku saabsan cudurkan dilaaga ah oo Kenya ay ka mid tahay dalalka dunida ee sida baan dagaalka kula jira hase ahaatee waxaa Soomaalida loogu baaqay meel kasta oo ay joogaan inay u hoggaansamaan fariimaha caafimaad si loo xakameeyo faafitaanka cudurkan. booliiska Jubbaland ayaa sheegay in 5 qof ay ku dhinteen xeebta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan inoo soo diray. dhowaan ayay ahayd markii goobaha waxbarashada ay ku yaalla magaalada Kismaayo la fasaxay cabsi laga qabo xanuunka coronavirus-ka ayaa taasi waxa ka dhalatay in ardayda fasaxa la siiyay ay tagaan xeebaha magaalada Kismaayo waxaana sidoo kale laamaha ammaanka gaar ahaan ciidanka booliska Jubbaland oo muddooyinkii ugu dambeeyay xeebta magaalada Kismaayo ee ka waday howlgallo ay dadka ku kala ceerinayaan si looga baaqsado xanuunka COVID-19 oo dunida saameeyay. afhayeenka booliska ciidanka ee Jubbaland gaashaanle Jaamac Maxamed Xasan oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Kismaayo ayaa sheegay in dad tiradoodu lagu sheegay 5 qof oo 2 kamid ay dumar yihiin ay ku geeriyoodeen mid kamid ah xeebaha magaalada Kismaayo gaar ahaan xeebta Kibora waxaana sheegay in ay ku qalibmeen xeebtaasi. afhayeenka booliska Jubbaland ayaa waxa uu fariin u diray waalidiinta dhalay caruurtaasi in ay guryahooda ku hayaan waxaana sheegay cidii awaamirtaasi u hoggaansami weyso tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. ilmaha saxeebta taagan in badan oo dabaasha aqoon laakiin kuwa saaxiibadooda gacanta iska qabsanaya baa jira. badii wada aragteen jamalay leedahay mowjado dhacay leedahay iskaba difaaci karaan iskagama badbaadin karaan in yacni waxay noqotay taas ay dhibaatadeeda iyo dhacdadeeda mid joogta ah ay noqoto ay ku leedaan ilmayaal badan ku dhimatay 2 gabdhood baa ku dhimatay badda waxa riboorkeeda la siinay ilaa 3 kale ilmood inay ku dhinteen oo iyagu dhashadas qalta badda ay ugu dhaceen yacni taab masiibooyinka la fadahantooda waxaan rabnaa in aanu halkan ogeysiinta uga gudbino ogana digno waalidiinta mar haddii iskuulka laga soo fasaxay ilmahooda inay noqon ilmo inta xarga lagala baxo meesha ay doonaan ku dhacaya khatartay doonaan nolol kulmiye. hadalka afhayeenka booliska ee Jubbaland ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli alaamaha ammaanka ee Jubbaland gaar ahaan ciidanka booliska ay howlgallo dadka lagu kala ceerinayo goobaha ay isugu yimaadaan ay ka wadaan gudaha magaalada Kismaayo. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic, KNN, Kismaayo. ciidamada xoogga ayaa qorsheynaya in ay xiraan xadka uu gobolka Hiiraan la wadaago dalka Itoobiya. Cismaan Aadan Carays ayaa warkan inoo soo diray.
iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo xanuunka coronaviruska ayaa saraakiisha ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ee ku sugan magaalada Beledweyne ay wadaan qorshe ku aadan inay xiraan xadka gobolka Hiiraan oo la wadaago ismaamulka Soomaaliya dalka Itoobiya maadaama qaad fara badan uu ka soo tallaabo maalin waliba xuduudka Itoobiya ee la leedahay dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan. Ganacsatada qaadka ayaa tan iyo markii la joojiyay qaadka ka imaan jiray dalkaasi Kenya waxay ganacsigooda u weeciyeen dhanka iyo dalkaasi Itoobiya oo isaga laga sheegay xanuunka coronaviruska. lama oga sida ay tallaabadan ugu dhaqan gali karto gudaha magaalada Beledweyne maadaama ay jiraan ganacsato fara badan oo iyaga noloshooda ay ku tirsan tahay ka ganacsiga qaadka oo iyaga sheegay inay noloshooda wax badan ay ka bedeli karto haddii qaadka la joojiyo dhibaato ay soo food saari karto ganacsiga dhaqaaqa ganacsiga ee magaalada Beledweyne. qaadka ka yimaada dalkan Itoobiya dariska la dalkeena Soomaaliya ayaa isaga waxa laga helay kees fara badan ee la xiriira xanuunka coronaviruska ee isaga galaftay nolosha kumanaan dad ah. Ismaan Aadan Carays, warbaahinta KNN Beledweyne. halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa raadiyo kulmiye. faahfaahin ayaa laga helayaa dagaal ciidamada dowladda Liibiya ay ku qabsadeen magaalooyin ay gacanta ku hayeen ciidamada daacadda oo ah Generaal Haftar. dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay la wareegeen gacan ku haynta 3 magaalo xeebeed oo istiraatiiji ah kuna yaala inta u dhaxaysa caasimadda Tripoli iyo xadka Tunisia kadib markii ay ka eriyeen ciidamada daacadda oo ahaa taliyihii militariga ee dalkaasi Generaal Haftar. ciidamadeenu waxay la wareegeen Surman iyo Sabratha waxayna eriyadeen ciidamada Haftar. Maxamed Ganuuno afayeenka dowladda ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka AB. bishii Abriil 2019 Haftar wuxuu bilaabay olole militari si uu ula wareego gacan ku haynta Tripoli laakiin weeraro iska caabin ah oo ciidanka dowladda uu kala kulmay ayaa ku qasbay in uu dib ugu gurto magaalooyinka ku yaala koonfurta dalkaasina uu fariisimo ka samaysto. mas-uuliyiin u hadlay dhinaca wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa shaaciyay in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ah uu soo gaaray dad rayid ah balse tirada dhimashada ayay ku sheegeen in ay ka badan tahay 9 ruux halka dhaawacana intaas uu ka badan yahay. weli wax war ah kama uusan soo saarin dagaaladan generaalka dowladda diidan ee gacanta ku haya dhul aad u ballaaran.